samaysannay tii shaqada dawladdu waxay bixiso oo dawladdu imika ta ugu weyn shaqada dadka siisa ama qadaraasada bixisa waxa loo baahan yahay oo aan u jideynay oo inu soo marnay 3 sanadood guddiga qadaraasada waa inay dhisantaa oo guddi adag noqotaa oo wixii dhiska daba tagtaa waa la kori doonaa laakiin wadaynu helnay oo waynu mahadinay waxa laga rabaa baacmisirka gaarkiina inuu u maro hantida uu dhisanayo iyo wuxuu bixinayo in loo sinaado oo kaas koo loo maro oo sharciya wax wada lahaanshaha iyo wadaagga bulshooyinta uu gaarsiisan yahay halbeegyada tilmaanta u ah ee tusmeeya waxa ugu weyn hanaanka qandaraasyadu u shaqeeya kaasoo muujiya heerka u sinaanta magaabada dhiiqdu hadba heerka ay taagan tahay dheeli iyo dhamays midka kafadu ay la daris tahay iyo duruufaha ku xeeran ee marxaladda la joogo maraan mashaariicda dawladeedba jirin iyo mar ay jireen labaduba tagtadii waa jiraal geediguna marba itaalu lahaa waa u socday shalay meel baa la joogay maantana meel kale la taagan yahay barina guulgalka humaaga oo daraska milayga soo foole ayaa buuxinaya beegsiga la haybsanayo hase yeeshee siduu maanta u shaqeeyo hanaanka qandaraasyada qaranku sanadkii 2020 annagoo ka duulayna siyaasadda xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi waxyaabihii aan noo qabsoomay waxa ugu weyn inaanu qabanay 163 qandaraas oo kala duwan lacagta ku baxday waa 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah lacagta 12 milyan ah cid inaga caawisay ma jirto waa cashuurtii dadweynaha laga qaaday oo dib loogu soo celiyay magac ahaan guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland waxa la aasaasay sanadkii 1996 wixii ka horeeyay haybintaasi ma jirin dhowr oo magacaabista ka dambeeyayna qaran ahaan yagleel baa wax waliba sii ahaayeen laakiin intii ka dambeysay ee rukumada dawladdu qumaatiga isu taageen ayaa tirsiimadu ka bilaabmaysa ilaa heerka haatan la joogo